xisbiga wadani ee Somaliland oo ka mid noqday saddexda xisbi qaran ee u soo baxay siyaasadda Somaliland kadib markii uu ka mid noqday saddexdii xisbi ee ku guuleystay codadkii ugu badnaa doorashadii golaha deegaanka ee Somaliland ka dhacday bishii November ee sanadkii la soo dhaafay ayaa arintaasi guusha uu ka gaadhay waxa uu dabaaldeg uga sameeyay guud ahaan Somaliland oo dhan wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Macalin Deeq ayaa warkan nooga soo diray iyadoo wariyaasha kale ee goboladuna ay ku xigsan doonaan xisbiga wadani ayaa maanta qabsaday munaasabadiisii uu ugu dabaaldegayay u soo bixitaanka saddexda xisbi qaran ee Somaliland loogu dhawaaqay dhawaan munaasabad ballaaran oo xisbiga wadani ku qabsaday hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa oo ahayd mid aad u ballaaran isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro Salaadiin siyaasiyiin iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah مسؤولينta xisbiga wadani kuwaas oo faahfaahin ka bixiyay halkankii uu soo galay xisbiga wadani uu soo gudbitaankan uu soo gudbay xisbiga qaran waxaanay u mahad celiyeen dhammaan dadweynihii u codeeyay xisbiga wadani ee sababay inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee Somaliland xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga talada ee Kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay gudoomiyaha xisbiga talada ee Kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xisbiga wadani ee uu ka mid noqday saddexda xisbi qaran ee Somaliland isagoo sheegay in xisbiga wadani looga fadhiyo inuu noqdo mid wax toosiya oo u sheega wixii qaldan xukuumadda isla markaana noqda mucaarad wax dhisa ugu dambeyntii munaasabadaasi waxa soo gunaanaday gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro waxaanu ku dheeraaday jaranjarooyinkii kala duwanaa ee xisbiga wadani u soo maray ka mid noqoshada saddexda xisbi qaran ee Somaliland ee uu maanta u dabaaldegay waxaanu gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ballan qaaday inuu yahay xisbiga wadani mid mucaarida isla markaana aanu noqon doonin mucaarid wax dumiya balse uu noqon doono mucaarid wax dhisa waxaanu dhaliilo iyo waliba eedeymo u soo jeediyay xisbiga kale ee mucaaridnimada kula mataanka ee u cid mas'uuliyiintiisa
sidoo kalena waxaa maanta magaalada Tani Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu qabtay xaflad si ballaaran loo soo agaasimay oo qayb ka ah dabaaldegyada oo xisbiga wadani ugu dabaaldegayo marxaladii uu ka soo gudbay ee ururnimo isla markaana uu ku soo fulay saaxadda salaanka siyaasadeed ee xisbiyada Somaliland waxaana xafladani oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay ka soo qayb galay xuqaar waxgarad iyo mas'uuliyiinta ururkan ee heer gobol waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani ee gobolka Togdheer Xuseen Kaahin iyo Jaamac Sidiiq oo isaguna ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee heer gobol waxaana ku dheeraadeen marxaladihii iyo guulihii kala duwanaa ee xisbigani ka soo hooyay doorashadii golaha deegaanka ee dalka ka dhacday حسبك وطني أيه وجهنا حسبك هو كسر قبي هيرو ونسر قبي حسب قرن حديث معني سوحة قفنا تدخل شكر النقاني إلهي هو شكر النقاني ما كان واحد يسمون نبينا ينور شكر النقاني رمان تدكي نذكر كها السلطة قليل إنه أور سياسات في وطني ساعات من نقضه حسب قرن أو كمل صدق حسب قرن waxaa sidoo kale iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay cuqaal iyo waxgarad tiro badan oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha guddiga talaya Tawfiiq Xasan Xuseen Caaqil Maxamed Biixi Chief Caaqil Cabdi Cali iyo waliba cuqaal iyo waxgarad kale oo tiro badan kuwaasi oo dhammaantoodba si ballaaran u hambeeyay xisbiga wadani isla markaana ku hambaliyay guulihii uu soo hooyay mucaaradda waxa weeye sida raggu yidhi wax la dubiye ma aha waa wax la dhiso لكن هذه اللغة تبوي هذا هو معارض إلى بيش جودية البقرة تبي لك الكلام ويانا ده مسموع بسيطه. وحلايا حزب الوطني سياسة لقاها ما هي حزب بقى يستوى ميسو سياسة ما لقاها ضيع. وعاملين دورنا إلى الدين حزب المعارضة أو شرعية. حزب المديسو حزب المعارض وتلك الدوسة هل غطوا حزب المعارض في تلك النساء. يدرك وما يدرك وما تدرك. تاني ما جدو حسب عارضة وتبيك سوكر بيوتبيك وهذا وجه ضده كيد صدقه. مسؤوليinta xisbiga wadani ayaa saaka kulan ku qabtay magaalada Laascaanood munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo iyagu taageersan xisbiga wadani iyo xildhibaanada iyagu golaha deegaanka xisbigaasi uga soo baxay oo madashaasi iyagu dadweynaha kala hadlayay munaasabadan dadweynaha fara badan ay ka soo xaadireen ayaa waxa isugu yimid oo guud ahaan xildhibaanada ka soo baxay golaha deegaanka ee xisbiga wadani u soo baxay waxayna halkaasi uga mahadceliyeen taageerayaashii iyagu xilliga urur siyaasadeed ka ahaayeen codkooda siiyay ay maanta ku noqdeen xisbi ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maanta waxaynu u gudubnay xisbi qaran berrina waxaynu u gudbi doonaa xisbul xaakim haddii alla idmo oo ilaahayna ku guuleeyo waxaan leenahay shaqo badan bayna soo dhex martay iyo isa noqon midaynu halkii ka hadhno xisbigii ururkii wadani oo u gudbay xisbi qaran xildhibaanadii soo baxay ee aanu macnaha dagaalka dee u galay haddaanu shacabkii nahay yani soo dooranay ee soo baxay taana waa xaflad waa mar labaad dadkii habeen iyo maalinba loo soo halgamayay xildhibaanada haray aad baanu ugu maxaan ku raadayay ugu bogaadaynaa waayo way nala shaqeeyeen soo doorateen abaalkeedii aanu idiin gudno oo aanu idiin soo celino waxqabad dhaba oo muuqata oo bulshada aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa munaasabadan waxaa loogu talagalnay inaanu ugu mahadcelino bulshaweyntii maadaama aanu ka soo gudubnay urur siyaasadeed aanu iminka noqonay xisbi qaran waxaan ahay xildhibaanadii ka soo baxay ururka xaqsoor marti sharaf baan ku imi haddeer halkan xildhibaanada saaxiibada ee golaha deegaanka ka wada tirsannahay حسب قرنك ودني أورك ودني حسب قرن أننا وحويان وحن كسر وين إن شاء الله إلى النقلان رجع الشقاية ومدولا
xildhibaanada waxa weeye waan u hambalyeynaa waxqabad haday noqotona waa la shaqaynaynaa. xisbiga wadani ayaa maanta boorama waxa uu ku qabsaday munaasabad midaasi la mid ah taasi oo ugu dabaaldegayay sida uu ugu soo gudbay urur siyaasadeedka islamarkaana uu xisbi qaran u noqday. waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarraysa xisbiga wadani oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani mudane axmed muumin seed, mas-uuliyiin ka tirsan guddiga fulinta ee xisbigan wadani, mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ee xisbiga wadani, xildhibaanadii golaha deegaanka ee xisbigan wadani kaga soo baxay doorashadii golaha deegaanka ee degmadan boorama, mas-uuliyiin ka tirsan urur siyaasadeedyadii haray qaarkood iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana munaasabadan ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha gobolka nowdal ee xisbiga wadani mudane cabdikariin muuse maal, wuxuuna ka sheekeeyey heerarkii kala duwanaa ee xisbigan wadani uu soo maray iyo guusha uu maanta higsaday. wadani wuxuu u taagan yahay midnimada, horumarka iyo ixtiraafka bulshada Soomaaliland ee muddada dheer baa goobaysay. warakii insha Allah sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa waxay taageero xoogan u muujiyeen xisbiga wadani oo ay tilmaameen inuu yahay mid wax weyn ka bedeli doona Somaliland dhanka horumarka haddii uu mustaqbalka dhow ku guuleysto talada dalkan. sidoo kale Dr. Axmed Aadan Buuxane oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga fulinta ee xisbiga wadani iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani mudane axmed muumin seed oo iyaguna gabagabadii munaasabadan taageerayaashooda kula hadlay ayaa waxa ay ka warameen taariikhda xisbigan wadani uu soo maray iyo waxyaabaha uu hiigsan doono haddii mustaqbalka dhow uu ku guuleysto talada dalkan. waa ilaahay mahadii haddaynu xisbi qaran noqonnay, mahaddaana waxaa iska leh dhammaan xildhibaan kasta oo cod keenay, codkiisu ha yaraado, ha ku soo bixi waayo ama ha ku soo baxo, wuu ku mahadsan yahay. shacbi weynaha cid kastoo codna siisay oo miisaankeeda noogu dartay. waxaan ka midnahay xisbiga soo baxay ee mucaarad waan nahay. mucaaradnimadan baa siduu dhaktarku qiimeynayay qaabiyada kale loo fahmay. mucaaradnimadu maaha in dowladda markaa jirtay talada haysa oo wax laga sheego maaha. mucaaradnimadu waxa weeye wixii saxa waxaad leedahay waa sax, waxa khaladna waxaad leedahay waa khalad. intaa way mucaaradnimadooda. munaasabadan ballaaran ee lagu maamuusayay guulihii wax ku oolka ahaa ee urur siyaasadeedka wadani uu ka soo hooyey doorashooyinkii golayaasha deegaanka 28 bishii aynu soo dhaafnay ka qabsoomay guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Somaliland ayaa maanta ku qabsoontay caasimadda gobolka Sanaag ee Ceergabo. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta sarsare ee urur siyaasadeedka wadani ee gobolka Sanaag iyo maayirka cusub ee degmada Ceergabo iyo sidoo kale musharaxiintii 22 ka koobnaa urur siyaasadeedka wadani uga loolamayay caasimadda gobolka Sanaag ee Ceergabo iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee magaaladan Ceergabo. waxa ugu horreynba madashaasi ka hadlay maayirka cusub ee degmada Ceergabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Farax ayaa u mahadnaqay taageerayaasha xisbiga wadani meel kasto ay joogaan. waxaana sidoo kale maayirka cusub ee degmada Ceergabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Farax uga mahadnaqay taageerayaasha xisbiga wadani halgankii adka ay soo galeen xilligii madaxtirinta ololihii iyo maalintii doorashada oo uu sheegay inay codkooda ku hubsadeen urur siyaasadeedka wadani maantana uu gaadhay marxaladda xisbinimo. waxa iyaguna dhammaantood madashaasi ka hadlay musharaxiintii ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka uga loolamayay xisbiga wadani caasimadda gobolka Sanaag ee Ceergabo, islamarkaana xilligii doorashada ku dhaafay sida hilaaca iyo kuwii sida guurguuradka ugaga baxay iyo sidoo kale kuwii ay la xoobsiibatay doorashadii golaha deegaanka oo dhammaantood loo hambalyeeyay guushan uu maanta gaadhay xisbiga wadani. Cabdi Naasir Khalid Siciid, wararka telefishanka caalamiga ee Somali Channel, magaalada Ceergabo. iyadoo dhawaan la soo saaray saddexda xisbi qaran ee ku guuleystay asxaabta qaranka oo uu ka mid yahay xisbiga wadani ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxaa xaflado damaashaad oo xisbigaasi lagu taageerayo lagu qabtay guud ahaan gobolada Somaliland. xafladaha mid ka mid ah oo ka dhacday magaalada Berbera gaar ahaan Hotel Barwaaqo ayaa waxaa ka soo qayb galay shacbi aad u tiro badan oo isugu jira madaxda asxaabta qaranka kuwa soo baxay iyo kuwii hadhayba mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Saaxil iyo degmada Berbera xildhibaanadii ka soo baxay iyo kuwii hadhayba haween iyo dhalinyaro ka mid ah taageerayaasha wadani ee waqtigii ololaha doorashada deegaanka. waxaana xafladaasi iyagu furay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Saaxil Maxamed Axmed Baashe iyo gudoomiyaha degmada. maanta
waxaa looga dabaaldegayaa waddanka somalilan intiisa badan isbeddelkii uu isu bedelay ururka siyaasiga ee waddani uu isu bedelay xisbi qaran ayaa looga dabaaldegayaa intiisa badan gobollada oo dhan maanta khamiistana lagu wada beegay oo lagu wada dana sidaasaynu niguna uga qayb galnay inaynu ka mid noqonno dadkaa u dabaaldegaya maalintaa uu xisbigu u soo baxay xisbi qaran waddani wuxuu higsanayaa xaqiijinta qaran madax bannaan oo sharaf iyo karaamo kula noolaada caalamka intiisa kale oo dhan xor uu ka yahay jahli faqri qabyaalad musuqmaasuq laaluush intaasoo dhammiyaa uu xor ka yahay anigoo cabdiraxmaan xuseen roble cabdilooliye waxaan hambalyaynayaa maanta guddoomiyaha xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo maxay leeyahay howlweednada kale ee xisbiga waddani anoo ka mid a xildhibaanadii ka soo baxay gobolka saaxil ee xisbiga waddani mahad ilaahay baa leh waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa iyadoo ururkaygu xisbigiisu bedelay iminka siinaya ilaahay haddii aan la idhaaho in maxay ahaday aanu ku soo bixi doonno insha allah bismillaahi kariim doorashada dambe inaanu noqonno xisbiga waddanka u taliya insha allah bismillaahi kariim waxaan kaloo hambalyo dirayaa taageerayaasha xisbiga waddani iyo taageerayaashii aniga shakhsi ahaan haddaanay cabdi xuseen roble cabdilooliye isiiye codka maanta waxaynu xusaynaa waa maalintii aynu noqonnay xisbi qaran ee aynu ka soo gudubnay urur siyaasadeed maanta waxaynu nahay asxaabta waddanka saddexda xisbi qaran ee u soo baxay mid ka mid ah oo weliba kuwa ugu xoogganoo ka mid ah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa intaynoo hadhayna inaynu guushiibkaaynu ka gaadhnay doorashadii deegaanka si la mida iyadana nugu gaadhno baarlamaankii madaxtooyadaba waxaa hadallo ka soo jeediyey xafladaasi loogu damaashaadayay xisbiga waddani qaar ka mid a mas-uuliyiinta ururadii hadhay iyo kuwa soo baxay iyo weliba xildhibaanadii hadhay ee ka tirsanaa xisbiga waddani haween iyagu ahaa taageerayaasha xisbiga waddani waxaanay dhammaan marka hadaladooda laysku soo ururiyo ay isugu biyashubanayeen hambalyo iyo taageero ay u dirayeen guud ahaan baaweynta xisbiga waddani iyaga oo ku ducaysanaya in ilaahay u rumeeyo himilooyinkooda hadhay ay higsanayaan